السلام عليكم سوري صاحبيال meelkasta oo ka joogtiin dunida daafeeda magacaygu waa Axmed Faarax halkaan nagala socotiina waa Himila Media Production soo kale milaas صاحبيال waxaan rabaa inaan ka jawaabo su'aal aad in badan soo weydiiyeen oo ah sales ku connect gareeyaa ama isku xidha telefoonka iyo kombiyuutarka waliba waxa ku jirta telefoonka anigu soo lahay kombiyuutarka iyo soo kale waxa ku jirta kombiyuutarka anigu soo lahay telefoonka maanta labaas qodob waynu arki doonaa warran waxa sameey doontaa waxa soo qaadanaysa xargaan USB-ga xargaan USB la yiraahdo ayaa soo qaadanaysa soo kale waxa soo qaadan doontaa telefoonka aad rabtay inaad kombiyuutar ku xirto marka inta soo qaadatid xarga marka waxa soo qaaday kadib waxa sameynaysaa kombiyuutarkaaga wuxuu leeyahay qayb loogu tala galay in xarkaha lagu xiro ama godadkan ayuu leeyahay godadkan waxa sameey doontaa xarku xir doontaa oo xarga godadkan god kamid ayaa geli doontaa marka xarka soo geliyo waxa soo haray xarga afkiisa kale oo ah afkii oo telefoonka ku xirmay waa afkan qaybtan waa qaybta oo telefoonka loogu tala galay inay ku xiranto soo kale waxa sameynaysaa telefoonka wuxuu leeyahay meel loogu tala galay in xarga la gelsho duleelkaas ayuu leeyahay duleelkan ayaa waxa sameey doonaa xarga aan geli doonaa marka xarga gelinana waa aan ku riixaynaa hagaag kadib markaas soo ruuxno waxa uu jeedaa computer ku waa hadii aad waaqana wuxuu soo muti waliba inuu soo qabsado telefoon hasaate telefoonka aad dirtaan waxa maartay kama koobiyay karo waxna kuma koobiyay karo sababtoo ah telefoonka marka aad ugu horeydo oo aad ku xirtid computerka waxa lagu dhigi doonaa aqbal ama allow ayaa lagu dhigi doonaa telefoonka ayaan password ka soo bixinaynaa telefoonka password ka soo bixinana oo aqbali doonaa anigayga hore hadda kor u soo isticmaalo bal saadiyada ugu horeyso ku isticmaasho telefoonka halkan wuxuu saar doonaa dayniga allow marka aad dhawo allow dooro laakiin saani hadda waxaan sameey doonaa hadda waa isku keeno connect gareeysan halka ayaa soo furaa qaybta USB computerka ayaa soo furaa kadib waxa ka fiir doona halkan telefoonka waxa uu jeedaa halkan waxa lagu soo daray waxa la yiraahdo Galaxy A70 asaga ayaa soo furaa markaas soo furo waxa la yiraahdo xogta aad soo qaadan doontid waxa ka soo qaadanaysa SD card-ka waxa ka soo qaadanaysa foonka oo leeyahay telefoon anu waxa dhigi doonaa waxa ka soo qaadana SD card-ka ama foonka mid aan rabaa soo doona bas maadaama anaga casharkeena ay tahay aan doonayno inaan wax ka soo qaadano telefoonkiisa waxaan dooran doonaa qaybta la yiraahdo foonka halkan foonka ayaa ku dhufana kadib waxa soo qaadan doonta wixii aad rabtid markaas in maartay telefoonkiisa ka soo koobiyo salaam aniga sawiradan sawir kamid ah ayaan rabaa inaan soo qaato sawirka ama file wixii markaas aad ayaa dul tagaysaa marka dul tagtid waxa leedahay rectangle leedahay kadib waxa leedahay copy ama waxa dhigi kartaa control plus C ayaa dhigi kartaa waan soo laabanaynaa desktop computer ka imaanaynaa kadib waxaan ku leenahay meeshan basta ayaan ku leenahay waxa ujeedaa halkan hadda waxaan soo galay sawirkii aan soo qaadnay waa kan halkan aan soo galay sawirka hadda aan soo qaadnay hagaag taas waxay ahayd inaad telefoonkiisa wax ka soo koobiyo waxaan rabaa marka wax computerka ee ugu jiro salahan ay saaran desktop-kan oo kale inaan ku diro telefoonka ayaan rabaa sidaas aan ugu sameeyo waxaan dul tagaa wixii aan rabo inaan telefoon ku diro kadib waxaan dhigi doonaa file-ka aad salahan file yar iska abuuranaynaa new oo la bixinaa file-kaas marka magaca aan la bixin doonaa waxaan leenahay isku xiraan leenahay isku xir marka iraado file-kan dhowr waji ugu diri karaan meesha waxaan sameey karaa marka hore inaan ta file-ka dul tago right click aan iraado kadibna aan iraado send to halkaas ugu qortay ku dhufana kadibna waxaan soo dooranaa Galaxy A70 hadii asaas iraado oo ay ugu dirsama oo hadda file-ki oo uu igala telefoon waxaan tagaa telefoonka ayaa dul tagaa oo waxaan soo furaa Galaxy A70 ayaa soo waxaan sameeynaa marka halkan waxaan soo furaa Galaxy ayaa soo furaa kadibna waxaan raadinaa file ay noogu qoran tahay isku xir maadaama anakeen aan ku soo qornay isku xir waa kana saaxiib waxa u jeedin file-ka isku xir waa kana waan ka tuuraa marka file-ka halkan oo waxaan leeyahay delete ayaan dhigi doonaa delete marka ay raado soo kale halkan uu yaala file-ka marka hore copy ma aana dhiin waxa ay send to kana ma aana dhiin send to ay wax ku dir hadaba waxaan rabaa marka qaab kale ugu diri karo file-ka ayaa dul tagay kadib right kala leedahay kad iyo copy labaas mid ku guusan ayaad haysaa salaam anaad copy oo kala iska naanaa markasta kad ma isticmaal doon kadib waxa soo furaa USB kadib waxa ka sii dooranaa halkan ay inoogu qoran tahay Galaxy A70 ay ku dhufana hadii aan rabo file-ka inaan memory ku shuban karaa hadii aan rabo inaan ku shubto foonka telefoonka ama maskaxda telefoonka aan ku shubto karaa hadda file-ka isku xir waa kana control plus C ayaa isticmaal hadii ka right click bas dhigi kartaa soo kale waxa ku shubi doonaa telefoon qaybta maskaxda ku shubi doonaa file-ka isku xir hadda waxa u jeedaa marka labadoodiba waa la igu shubay file-ka meel kasta hadda telefoonka uu ugu jira computerkana waa uu ugu jira saxbiyaal waxaan filayaa inaad wada fahanteen qaabka la isku xiro telefoonka iyo computerka xog telefoonka ku jirtana loogu shubto computerka ama xog ku jirto computerka loogu shubto telefoonka hadii ay tahay marka warsi muuqaalka soo gaar muuqaalka leegsa sina share gareysay asxaabada uga faa'iideystaan waxaan kaaga mahadcelinayaa daawashadaada quruxda badan wixii su'aal ay qabtay qaybta hoose commentiga inoo reeb kaliya gaar doona casharka xigana waa dhamaantood isma dhaafin